بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد waxaan isku dayeynaa in sha allahu tacaala inaan kelimaad ka nidhaahno mawduucaasi ku saabsan cilmiga iyo in waxyaaba ugu waaweynee jannada lagu galo uu ka mid yahay. waxaan isku dayi doonaa inaan koobo, isla markaa waxaan isku dayi doonaa inaan nusuus badan akriyo haddii ay suurtowdo, sharaxeeda inta badan aan idinka idiin daayo. ugu horeyn cilmigu guud ahaan waa waxay ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam lagaga fadilay malaa'igta, amase waa wixii aadam mu'ahalka looga dhigay inuu noqdo khilaafada dhulka, inni jaacilun fi lardi khaliifa, khilaafadaasi inuu ku guto. sida awgeed ba ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya waid qaala rabuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku الdimaءa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qala innii aclamu ma la taclamuun wacallama aadama alasmaءa kulaha ثuma acradahum clى اlmalaa'ika faqala anbi'uunii biasmaءi haؤulaaءi in kuntum صaadiqiin qaluu subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim. qisada tan oo duuduub ahaan sheegaysa uun ilaahay subxaana wa tacaala inuu malaa'igta u sheegay inuu dhulka khaliifo u yeelayo, khaliifadaasina inuu aadam yahay, inay sheegteen malaa'igtu markaasi mas'alo aanay aqoon badan u lahayn inay ka hadleen, dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala uu jarribay nebi aadam calayhi salaatu wassalaam. ilaahay uu asmaada baray, wacallama aadama alasmaa'a kullaha. dabeetana malaa'igta loo soo bandhigay masaladaasi ay garan weyday, kadibna ay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim. idan aqoontu guud ahaan waxaynu leenahay waa waxa aadam alla ku sharfay subxaana wa tacaala, waa waxa keenay aadam inuu marka mas'alada khilaafada laga warramayo inuu dheeraado derajo malaa'igta. waa waxa keena qofka bini aadamka mu'ahalka u siiyaba maamul dhammaantiiba. walidalika ilaahay subxaana wa tacaala reer banu israa'iil markay weydiisteen inuu u sameeyo nin madaxa, ee ilaahay subxaana wa tacaala waqaala lahu nabiyuhum in allaha qad bacatha lakum taaluuta malika. taaluut baa boqor laydinka dhigay markii la yidhi, qaluu anna yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal. sidee buu madaxnimada u helayaa bay idhaahdeen, annagaaba kaga xaq badan leh. waxyaabihi ay sheegteenna xoolaa ka mid ahaa. ilaahay baa wuxuu ugu jawaabay ina allaha اstafaa calaykum wazaadahu bastatan fi اlcilmi waاljism wallahu yu'ti mulkahu man yashaa. waa qadiyadu sheeganaya nebi yuusuf markii uu rabay in madaxda laga dhigo, qaala ijcalnii calى khazaa'in اlardi inii xafiidun caliim. idan cilmigu duuduub ahaan waa waxa qofka bini aadamka ah sharafta u yeela, waa waxa dhaxal siiya adduunka kan khilaafadiisa inuu yeelan karo ama wadi karo. si kale markaynu u tilmaamnana ilaahay subxaana wa tacaala waxyigii uu nebi maxamed usoo dhiibayna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabay masalat alcilm. iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsana ma lam yaclam. waa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan kale waa ka ku tilmaamaya nuun waalqalami wamaa yasturuun ma anta binicmati rabbika bimajnuun. inahaasoo dhamme waa iska muqadamaad guud oo tilmaamaya aqoonta iyo mudnaanta ay islaamka dhexdiisa ku leedahay. iyo ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam markii khilaafada loo dooranayay wixii lagu doortay inuu ahaa cilmi, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii wixii lagu furay inuu ahaa wax akrin iyo qalam iyo cilmi waxa ku saabsiisan. bale qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa in cilmiga lagu hanan karo waxaan xooga kale lagu hanan oo dhan. oo waa ka alla subxaana wa tacaala ku tilmaamaya nebi sulaymaan qoladii la joogtay
وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. markii ay sheegteen markay sheegteen cifriitun min aljinni markuu yidhi markuu nebi sulaymaan weydiiyey yaa carshigii balqiis keenaya waxa uu cifriitun min aljinni sheegay inta shaqada aad ku jirto inaan keenayo qabla an taquuma min maqaamik dowradaada shaqo inta ay socoto ayaan keenayaa buu yidhi waxaa laga keenayaa carshiga maxay saba waxaana la keenayaa xaggee falastiin bayt ulmaqdis waa malaa inta un dayaarado hadda socdaan in leeg weeyaan yani 3 hours or 6 hours intuu shaqada ku jiro inuu la soo boodo cifriitun min aljinni uu keeni karo lakin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab nin aqoon kale isagu leh oo kitaabka aqoontiisa wax laga siiyey isagu wuxuu sheegtay ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ana aatiika bihi wuxuu sheegtay inuu keeni doono qabla an yartada ilayka tarfuk ilbiriqsi in ka yar inuu ku keeni karo kayf siday u dhacday ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala laakiin una aqoonta bini aadamka maanta dunida uu ku hayo waa waxaan ilaa hadda technolojiyada bini aadamku haysta aanay gaadhin malaha un bini aadamka in ilbiriqsi ka leg waxa intaa socon karaa waa signalska un hadda intaynu hayno signaladan telefoonada iyo telecommunicationka iyo waxa kan mooyi haddii carshiga oo dhan inta dib loo reform gareeyo ase signal loo send gareeyo xagga kale laga receive gareeyo dabeetana farsamadu ay xadkaa gaadhi doonto laakiin hadda waxa la hayaa ma gaadhaan waxaa meesha ka muuqata uun marka awoodda iyo xooggu waxaanay qabanin inuu cilmigu qaban karo awoodda iyo xooggu waxaanay qabanin inay aqoontu qaban karto walidalik ayaa maantadan dunidan xataa aynu ku nool nahay aqoonta bashariyadu irsiga ay kala dhaxashay yani aqoontan kale maanta dunida taalla waa dhaxalkii reer nebi aadam wuxuu kala dhexlayay qoloba inay ku daraysay maanta waddanaa jira aan lahaynba resource waxba aan haysanin waddankooda waxba oolin haddana dunida dadka hogaamiye ka mid ah bisabab ilcilmi un qura jaban waa no resource country bay yidhahdaan waa waddan aan lahaynba wax resource oo dhulkoodu waa dhul aan wax ka soo saar lahayn laakiin aqoon baa waxay gaadhsiisay inay dhaqaalaha labaad ee duniyada ama koowaad ama meelahaasi inay hiigsadaan oo dunida hogaamiyaan aqoon baa keentay idan aqoontu waxay qaban kartaa yutaata bilcilm aw yutaata bilcilm waxaan xoog lagu keeni karin baa aqoon iyo cilmi lagu keeni karaa ilaahayna subxaana wa tacaala cilmigaasi waa ka ku sharfay wax kastaaba cilmiga cidda ay dheer yihiin walidalik baa nebiyada ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu nebi maxamed tilmaamaya walowlaa fadlu llahi calayka waraxmatuh lahama طaa'ifatu minhum an yudiluuk wama yadiluuna ilaa anfusahum wama yaduruunaka min shay waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka ma lam takun taclam wakana fadlu llahi calayka cadiima nicmat almacrifa ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamed markuu u gallad sheeganayay wuxuu ugu gallad sheegtay inuu aqoon siiyey bashar oo dhanna ilaahay baa ugu gallad sheeganaya aqoonta wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka markuu u gallad sheeganaya waxa loogu gallad sheegtay iyagoo aan waxba garanaynin inay hooyooyinkooda dhaleen dabeetana ilaahay inuu siiyey adawaat lcilm lacalakum tashkuruun baa alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala waana manada guud ahaan nebiyadoo dhan nabiyullaahi yuusuf ilaahay muxuu leeyahy walamaa balaga ashuddah aataynaahu xukman wa cilma nebi muuse ilaahay muxuu leeyahy walamaa balaga ashuddah wastawa aataynaahu xukman wa cilma nabiyullaahi ciisa almasiix ilaahay muxuu leeyahy yaa ciisa bnu maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نبي الله إبراهيم إلهيم حليه مركو أبيه لهدي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا إذن وحيابا العلم كم من نيستين نبي يده
وهي بشر ككلك دورين نعمة الوحي وعلم الله سبحانه وتعالى وكقاري علي وحقرانك إن برا علمك سيدي سبعين يهي وحمضا نعمة مضا إن غرب الله قاله إن الله صفره إن الله نبمته إن الله كديدمه أقوم برشاد درادد إن يتهين نمعه وحاصر دان مضا سيدا وقد بقى إلهي القرآن وحين قلت المام يا نبي موسى له وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي استاقي ما يلان مجمع البحرين كقارو أما السنضو أن صعده حقب كعلماء التفسير قار كمدا إلهي سيديتنا يسنضو انت أصو السنضوات بانو اللغين يقول يا قونت أين صاهرة وقال سبحانه وتعالى قلت الماما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا نبي موسى وأقول إنه ننك لدبقله ودبا صعدا إنه وحكا صوبرته وارمكو الرعاية وقالوا بولي هذا هنونك هتايسان وحكا صوبرته كري ما يسيد بالليلي اسنو حلي وصبر يا إذن والنعمة مضن in loo safro oo loo socdo waxaad ka garan kartaa culimadii muslimiinta iyo rixlaadkoodii hadaad kutubta culimada taariikhdooda lagaga warramayo iyo taraajimtooda akhrido waxaad u yaablaad ku arkaysaa aqoontu iyadaa nuura markaasi jahliguna waa dhulumaat aqoontu waa waxaan laga dhargin إلهينا والنبي عليه الصلاة والسلام وضدك وأقوم بدنا وهدنا يسيق كل يوم حتى هذا إله يكر لأقوانته وقل رب زدني أقوانته سي نوع كستوائي تهي هذا أقوما واحترك على تهي إسلام كاكتي سواكو أماننتي قرآن كوحينات المامية نبي الله سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين داود يا سليمان بعلما نصيني بالي سبحانه وتعالى إلهنا ويكون مهدينا دوما كفضله حاله فضله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير نبي سليمان انتو سسوت تاقيب وحلية وردضوا وحنا لبرا أفشن براتك إذن حتى أفشن براتك ولا يكون هينا إنه علمه واحتري هي أيو قرآن كوينوت المامية إذن والنبي هضل يولي وحنا لبري منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين منطق الطير كوبرتين وحبوك فائدة وحوك فائدة تهبا عرش بلقيس يوركن ودنبا شمبر يربا وركا صدنبا كيريبا ده بلا شمبر كلفتيسة أيا شاكتيبا سليمان إنو وحديري هاي وحاو ديري ينينا أقوانتهاي مركي وايي او هنجبي او يرى ما ودلي ما وحن بان سمينيا إلهي وحده فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ورأنا هين بان سوكو بيبولي سليمان حتى شمبر كوح سليمان اسكقبض يا مركا كان ورأن سليمان هينين إنو يساقو هيو وجئتك من سبأ بنبأ يقين وروين بانو كان بل إلهي سبحانه وتعالى waxa uu quraanka inoogu tilmaamayaa ibnu aadamkii walaalkii dilay dulmiga galay ee wareeray waxba garan waayay hatta intuu ka loo soo diro si uu wax u baro idan hatta tuka inuu noqon karo wax cilmi laga qaato haduu cilmi dheeraad isagu hayo fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab fawari sawata akhi fasbaha min an-nadimin bal quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa ayga wax la baraa inuu ka fadli badan yahay ayga wax la barin oo ka wax la baray waxa banaan wixii lagu ugaadhsado kaan wax la barin se waxa lagu ugaadhsada ma asaxayo yani xalaal ma noqonayo marka warkaasi oo dhan soo koobo waa ka muqaddama li mawduucina oo ah cilmigu umuuman kiisa nafciga leh noocu doonaba ha noqdo inuu wax tariyahay adduuniya aakhiraba inuu wax ka taro laakiin cilmigu wuxuu kala weyn yahay shaygan macluumkee shayga la baranaya siduu kala weyn yahay wuxuu kala weyn yahay sida uu maqsuudka aad rabto ku kala gaarsiin og yahay cilmiga keensanaya inaad bariis heshaa wuxuu qiimihiisu yahay bariis hal
cilmiga keensanaya inaad naar ka badbaado jannana heshaa wuxuu qiimihiisu yahay janno iyo naar qiimaha ay leeyihin. cilmiga keensanaya inaad quraanjo wax ka ogaataa wuxuu qiimihiisu yahay quraanjo intay waxtar leedahay. cilmiga keensanaya rabu samaawaati waalardi inaad ogaataa akbar xaqiiqa dunida tan ka jirta inaad ogaataa wuxuu qiimihiisu yahay shayga aad ogaanaysaa intuu leegyahay. idan cumuuman waxaynu leenahay cilmigu ku dhib loo gaar loo isaga waynu tilmaami doonaa oo qur-aanka iyo axaadiistuba tilmaamayso oo isagu madmuuma. laakiin waxaan ka warramayaa cilmiga naafica. cilmiga naafica laftiisa wuxuu u kala qiimo badan yahay waxa uu ku dhaxal siinaya siduu ugu kala badan yahay. idan cilmiga janno lagu helo wuu ka fadli badan yahay cilmiga kaloo dhan. cilmigaa qofka ka qadaana jahli isagu ku dhan yahay waayo wixii ugu weynaa nolosha buu ka qaday. markaynu nolosha qofka bini aadamkaa eegno atwaar baad maraysaa kala dambaysa. dawrarkaad dhabarrada hooyooyinka iyo aabbayaasha kusoo jirtay waxba badan maad ogeyn. dabeetana caloosha hooyadaabaad gashaa waxaad hooyadaa ku dhashaa sidii qur-aankuba sheegayay laa taclamuuna shay-a idinku aan waxba garanaynin. laakiin maalintaa wixii ka dambeeya waxbarashaad bilowda isla markaana noloshu 60 sano 70 sano adduunkan baa la kor joogaa. wixii ka dambeeya ee xabaashu ay ka bilaabanto waa rawda min riyaad aljanna oo xufra min xufari naar. dabeetana ilaa iyo qiyaamaha laga gaadhayo ilaa iyo jidkii siraad iyo miisaan iyo xisaab iyo xawd la marayo ilaa iyo laga tegayo janno iyo naar loo qaybsamayo. cilmiga intaasi ka warramaya intani way maqlaysaa inaga tahay. cilmiga intaasi ka warramaya ee ah inaad aakhiro badbaado oo weliba ay la socotana adduunkana in lagu badbaado. yani marka aan ka warramayo aakhiro iyo janno iyo naar iyo in lagu badbaadayo macnaheedu maaha in dunida lagu sii rafaadayo. waxa weeyaan dunida lafteedana weliba lagu badbaadayo. cilmigaasi wuu ka qiimo badan yahay cilmiyada kale oo dhan. saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy man yurid illahu bihi khayran. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku yaalay wuxuu tilmaamayaa man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin. ilaahay subxaana wa tacaala khayrba qofka uu la rabo khayrba qofka uu la rabo diintuu baraa baa la yidhi. diinta barashadeeda waxaa looga jeedaa waa cilmigii aad ku kala garanaysay xaq iyo baatilka. waa cilmigaad ku kala garanaysay dariiqa jannada lagu maro iyo dariiqa naarta loo maro. waa cilmigaad ku kala garanaysay rabu samaawaati inaad caabudayso iyo wax ka sokeeya inaad caabudayso. waa cilmiga aad ku kala garanayso wanaagga iyo samaha iyo xumaha ku kala baraya. waa cilmiga keensanaya markaasi nuurka ah ee cagsigiisa lagu tilmaamay inuu dhulumaad yahay. walow brofessorka dunida ugu weyn la ahawe brofessorka dunida ugu weyn hadduu ilaahay garan waayo waa wax la-aan waa jahli dhammaantii. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afaman yaclamu ana maa unzila min rabbik kaman huwa acma afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaq. cidda garanaysa wixii xagga alle laga soo dejiyay inuu xaq yahay. nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay ka garanaya miyuu la mid yahay baa ilaahay leeyahy kaman huwa acma. indhoole miyuu la mid yahay. yacni waxaa laga dhigay qof wax arka iyo qof aan wax arkayni nolosha intay ka kala ogyihin. qofka wax arkaya waa adawaatlcilmi waxyaabii ugu muhiimsanaa buu haystaa wax badan buu ogaan karaa. qofka see indhaha waayaa wax badan oo macluumaadka ka dhiman oo ka dhinaan kara. waxaa la midaba la tilmaamaya camal qalbi cidduu ku dhacay. indhala-aanta dhabti waa qalbiga. qofka alle arki kari waayey subxaana wa tacaala. ilaahay cirkan abuuray ee dhulkan abuuray ee isaga abuuray ee dunida leh ee jannada leh ee naarta leh rabu samaawaati walardi qofka arki kari waaya ee u cibaadaysan kari waaya ee jannadan dariiqii lagu gelayay garan kari waaya ee jidka siraad wixii lagaga badbaadaya arki kari waaya
ogeynba in jid siraad uu jiro iyo jahannamo korkeeda in la marayo, qofka intaa aan ogeyni waxba ma oga. hadhow haba yidhaahdo wadnaha sida loo qalaa naqaanaye, khabiir baan hoo wadnahaan bedelaa. wadnuhu waxba sheegi maayo haddaad rabu samaawaatba garan weyday. injineer baan hoo combyuutarkaa naqaana, waxba combyuutarku sheegi maayo rabbulcombyuutar ba haddaad garan weyday. idan waxa meesha yaalla wuxuu yahay aqoonta aan rabno inayn markaasi aqoon oo dhan waa ammaanaynaa baan leenahay marka hore hadday nafci leedahay. oo taa shimbirku uu sheeganayay nebi sulaymaan ama eygaasi waxaynu idhi aqoontiisa, eygaa la tababaray aqoontiisu inay wax nafci la tahay qur-aanka sugaya. macnaheedu maaha markaan masaladan weyneynaya inaan leeyahay aqoonta kale ma jirto. aqoonta kale way jirtaa, laakiin waa in beriis lagu cuno. waa jirtaa, laakiin waa in nolosha lagu fudaydsado. ama si kale haddaan u tilmaamo, aqoonta science-ka la ydhahaa maxay tartaa? time and space factor bay yaraysaa bay yidhahdaan. aqoon oo dhan marka la isku daro all sciences wuxuu ka warramaa baa la yidhahdaa. time factorka wax lagu qabanayo in la yareeyo, iyo spaceka waxaasi qaadanayaanna in la yareeyo. labadaa shay yarayntooda basharka oo dhami wuxuu haystoo dhan ee ilaa aadamku kala dhexlaya ay ka warantaa. ama computer dhe ama tib dhe ama wax kale dhe ama waxaad doonta dheh, waxay yidhahdaan this 2 points buu ka warramaa. waktiga ugu yar in wax lagu qabto, spaceka ugu yarna inuu wuxuu qaadan karo. ama tan kale aynu sheegaynaa waa ta nebiyadu ka tageen. walidalik nebiyadu waa dadka u aqoon badan ee dunida tan korkooda yimi, waayo iyaga waxa laga siiyey cilmi alle uunuu ogyahay subxaana wa tacaala oo aan caqliga bini aadamka lagu gaadhin. caqliga bini aadamka mid aan lagu gaadhin ayaa iyaga la siiyey si ay bashariyad oo dhan u hagaan. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, ina alambiyaa lam yuwarithuu diinaara walaa dirhama wainama warahuu alcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir. si kale haddaanu tilmaamo, qays ibnu kathiir baa wuxuu leeyahay nin baa soo lugeeyey oo madiine ka yimi, dabeetana wuxuu u soo lugeeyey inuu yimaado dimishqa. dimishqa oo markaa uu joogo saxaabigii la odhan jiray abu darda. abu darda oo dimishqa joogo uu yimi, dabeetana wuxuu ku yidhi, abu darda baa wuxuu yidhi, maa aqdamaka ya akhi, maxaa ku keenay, maxaad doonaysa? wuxuu yidhi, xadiidun balaganii annaka tuxadiثu can rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam. inaan hubiyo un xadiid laygu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaad adigu ka sheegaysaa. waxaan madiine uga imid oo aan dimishq u imi. madiine iyo dimishq waagaa waa la lugeyn jiray. waxaad qiyaasta qof intuu madiine luka bilaabay dimishqa tegey. waxaan u socdaana wax kale maaha buu leeyahay, hal xadiidoo la yidhi nebi moxamed baad ka maqashay calayhi salaatu wasalaam inaan kaa helo. abu darda baa wuxuu ku celiyay, ama ji'ta lixaaja, wax danoo kale miyaad u imanin? qaala la. qaala ama qadimta litijaara, war tijaara iyo baacmishtari ha kuuba laabnaato tan iyo shay labaad ha ku ahaatee, dan kale miyaanay jirin? intaad soo yara baacmishtar tagtay oo aad meesha timi haddana inaad tidhi bal xadiidkiina abu darda aad sii weydiisid. qaala la, maya dan kaloo dimishqa iga soo gashay ma jirta buu leeyahy. dimashq wax kaloo aan u imi ma jirto ilaa iyo inaan helo mooyaane xadiidkaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam. abu darda markaa ninkii war kalu u sheegay, xadiid kalu u sheegay. wuxuu yidhi, qaala fainii samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama yaquul. abu darda baa wuxuu yihi, waxaan maqlay nebi maxamed oo leh calayhi salaatu wasalaam, man salaka طariiqan yabtagii fiihi cilman salaka allahu bihi طariiqan ila aljanna. waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed oo leh calayhi salaatu wasalaam, qofka jid mara, jidkaasiya uu cilmi ku raadinayo, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu mariyaa amase waxaa loo fudaydiyaa jidka jannada loo maro. yani waddada cilmigu waa waddadii jannada ayuu ku leeyahay abu darda. nebigoo caynkaa le baan maqlay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xadiidka wuxuu kaloo sheegayaa, waina almalaa'ikata latadacu ajnixataha ridaa'an liطaalib اlcilm. malaa'igtu garbaheeda ayay daadajisaa oo meesha ayay ku soo dhowaataa raalli ay ka tahay daraaddeed qofka kan cilmiga raadinaya. waina alcaalim, wuxuu kaloo u sheegay xadiidkaasi,
qofka cilmiga barta ilaahay subxaanahu wa tacaala weynidiisa mar hadduu baranayo in ilaahayna isna makhluuqaadkiisa kale u sakhiro xataa makhluuqaadku ay isaga ilaahay u weydiinayaan dembi dhaaf saa daraaddeed bu wuxuu nabigu leeyahy waina alcaalima layastakfiru lahu man fi الsamaawaati waman fi lardi xata alxitaanu fi lma qofka caalimka ah waxaa dembi dhaaf ilaahay u weydiiya cirka kuwa jooga ee malaa'igta ah iyo makhluuqaadka alla abuuray ee dhulka jooga xataa kalluunka badda ku jira ilaahay dembi dhaaf weydiiya buu yidhi markaasuu sii wada wuxuu yihi wafadlu اlcaalimi cala alcaabid qofka cilmiga leh waxa uu dheer yahay qofka cibaadaysta ka fadli اlqamari cala saa'iri اlkawaakib inta uu kawkabku ama dayaxu inta uu dheer yahay xidigaha kale xidigu waxbay inoo ifiyaan laakiin marka loo eego dayaxa binisbati ilayna innaga marka laynoo eego dayaxa dee ka iftiin fiican qof kastoo ilaahay caabuday horta waa caalim qof kastoo ilaahay caabuday waa caalim laakiin haddana qofku hadduu caabid qura noqdo asuu aqoontiisa sharciga ay kori weydo masaa'il badan buu can jahlin ugu dhacaa ama masaa'il bidca ha noqoto ama waxyaabo xaaraana ha noqoto ama waxyaaba mutashaabihaad ha noqoto wax badan buu isagoo isla khayr kororso uu la waayaa sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam qofka caalimka laakiin caalim hadalla lagama warramayo waa caalim cibaado ku darsaday kan laga warramaya waa caalim waxaan uu sido uu yahay wax qof ku shaqaynaya wuxuu nebigu leeyahy wuxuu la mid yahay sida dayaxu uu la mid yahay xidigaha kale sida uu la mid yahay buu ula mid yahay caalimka iyo caabidka waxa u dhexeeya intii xadiidkii macruufkii a wada taqaanay sheegayay ninkii 9 dilay ee u yimi ee dadka ku yidhi waar ii sheega dadka yaa u cilmi badan ninka magaaladiina u cilmi badan ii sheega ay wadaad cibaadaysta u sheegeen nin zaahido oo meel iskaga cibaadaysanaya taasina waxay kaloo daliil u tahay masale kale laakiin markii loo tilmaamay waxaa loo tilmaamay nin meel ku cibaadaysanaya ninkiibuu u yimi wuxuu ku yidhi waryaae 9 baan dilay ee toobad maleey may buu ku yidhi toobad kiina uu ku daro isna 100 buu kaga dhigay haddana nin uun isla toobadkeen buu ahaa dadku ku noqdo haddana wuxuu yidhi war ii sheega dadka yaa u cilmi badan nin caalima baa markii dambe loo sheegay ninkaa caalimka aha markii loo sheegay ee u yimi wuxuu yidhi war 100 baan dilay toobad maleeyay ninkii 100 dilay haabuu ku yidhi waman yaxuulu baynahu oo isaga iyo toobadda yaa kala celinaya buu yidhi toobad buu leeyahy laakiin cilmigiisa waxyaabaa tilmaamaya ninkuu su-aashu weydiiyo qura ugama jawaabin wixii uu u baahnaaye uu ku badbaadi lahaa buu u sheegay waana wadiifada caalimka laga rabo caalimku maaha su-aal marka la weydiiyo haa maya xalaal xaaraan intaa inuu yidhaahdo ee caalimku waa tabiib waa tabiib alquluub waa tabiib qofka ku hagaya jidkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam idan markuuse jawaabtii su-aashiisa markuu uga jawaabo haddii ay jirto qofka kan xaaladiisa waxuu ka ogaya ama waxuu u arkaya in khayr ugu jiro inuu ugu daro weeyaan ninka waxaa la weydiiyey toobad ma la leeyahay haa buu ku yidhi laakiin wuxuu kaloo ugu daray aqoon kale oo ah qofku markuu xumaha ka baxo waa go-aan u qaatay laakiin go-aankaasi inuu sugmaa waxay u baahan tahay inuu bii'o kale helo environment kale ula dhaqmo inuu helo deetana wuxuu ku yidhi niyow meeshan aad joogto waa bii'o dayday oo dad dulmi badan baa jooga ka dhex tag magaalo hiblaayo qaba buu yidhi taas baa dad ay ilaahay caabuda ay joogaan yani wuxuu ugu daray qofku haddaad khamriga iska daynayso meesha khamriga lagu cabo waa inaad ka tagtaa asxaabta khamriga cabto waa inaad jartaa haddaad laakiin weli la saaxiibtay way adagtay waxaad u baahantay kuwa khamriga cabin inaad la saaxiibto ku xidhantid kuwa xagga khayrka ku haga inaad ku xidhantid sida awgeed bu wuxuu u tilmaamay wixii uu u baahnaayo kale oo ah environmentka inuu bedelo ahlulcilmigana sidiisaba culamada garata qof kastaaba inta uu cilmi leeyu dee wax ku miisaamaya caamadu kawaacidka ee dadka wacdiyey is hortaagee waxoogaaga sheega saydan oo kale iyo ka iska cibaadaysta masaajidka iskaga jooga tusbixiisa roge ee halkaa lagu yaqaana cibaadada badan leh iyo ninka khabiirka cilmiga leh sheekh shariif cabdinuur waxaa laga yaabaa inay isku si u yaqaanin intaba waa culamadii waddanka inay ku yidhaahdaan shariif cabdinuur iyo kan wax wacdinaya iyo kan cibaadaya intaba inay culamada ku tirayaan laakiin maha cilmiga waxaa garta un dadka ahlulcilmiga
qofku waacid wuu noqon karaa, qof dadka wacwacdiye inta uu fahmo dadka u gudbin karo wuu noqon karaa, laakiin taa macnaheedu ma aha inuu caalim yahay. caabid wuu noqon karaa, qof iska cibaado badan oo wardigiisa iska haysto oo iskaga hadha, ahlu fusuuqa iyo waxaasi oo dhan oo dikrigiisa badsada, oo ahlu ghaflaha ka taga oo u baxa inuu noqdo dadka ilaahay xasuusanee dikrigiisa haysta, laakiin ma aha inuu caalim yahay. cilmigu waa dhaxalkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. qayb yaro ka mid aad adigu markaa haysata oo ah qismi alcibaada, ama qayb yaro ka mid aad haysato ah qismi dacwa, inaad wax wacdinayso. amaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalkuu ka tegey intan wuu ka ballaadhnaa. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan dheer ee abidarda akhrinayo, ina alculamaa warithatu lambiyaa. culamada oo keliya ayuunbaa ah buu leeyahy kuwii dhaxlay nebiyada. caalimku nebiguu dhaxlay. muxuu ka dhaxlay? caalimka xaqiiqigii nebiga wuxuu ka dhaxlay wixii uu siday oo dhan. hadday cilmi tahay wuu ka dhaxlay, hadday cibaado tahay wuu ka dhaxlay, hadday dhowrsooni tahay wuu ka dhaxlay, hadday diin dadgaadhsiin tahay wuu ka dhaxlay. caalimku waa inuu dhaxlaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuxuu yihi waina alambiyaa lam yuwarithuu dinaaran walaa dirhama. nebiyadu inoogamay tegin buu leeyahy xoolo, adduun kamay tegin. inamaa warathuu lcilm, aqoon bay ka tageen. faman akhada bihi akhada bixadin waafir. xadiidkii imaamu tirmidi iyo abu daawud ay warinayaan, culamo badanina ay tasxiixinayaan sida sheekh alalbani iyo rag la midi. wuxuu xadiidkaasi sheegayaa marka qiimaynta uu islaamku cilmiga siinayo. wuxuu kaloo xadiidku sheegayaa cilmigu inuu yahay ariiqii jannada. waayo saxaabigan ninkan u yimi wuxuu ku yidhi waxaad raadinayso soo cilmi ma ahayn. idan cilmigu cibaadaadka ugu badan buu ka mid yahay. barashadiisu haddii ay la socoto maxay? niyadii ikhlaaska ahayd, kibir iyo dadka aad kula murantid iyo magacaad yeelatid iyo wixaasi aanay ku jirin, aad mukhlis tahay, iyo inaad ilaahay ugu cibaadaysato intaad barataba inaad dabaqayso hadday kaas kuula socoto, iyo inaad dadka gaadhsiiso, isaga ka fadli badan cibaadaadka caadiga ah. waa ariiqii jannada. maanta adigu hal salaadaad tukan kartaa, 5 salaadood oo fararaad tukan kartaa, 20 iyo sunna ah, waxaad doonto sheeg, 50 tuko. haddaad se 5 qof 10 arday haddaad wax bartay, faatixada barto ay ku tukadaan, ama sida salaada loo tukado aad barto ay ku tukadaan, 10koodii salaadoodna waad leedahay, 50 farala baad leedahay. ninkii kale waa sunnayaal wixii u waday 5 faral un buu leeyahay, faralka iyo sunnuuna isuma dhigmaan. idan sida qura cibaadadaada aad u badin karto waxaa ka mid a cilmigaasi. saa daraaddeed ba waxaa loo tilmaamaya inuu yahay ariiqii jannada. 5 qof markaad salaada bartay, salaadoodii mid lamida baad leedahay. si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dhaxalkii nebiga inuu ninkaasi yahay ninka haya dhaxalkii nebiga. cilmiga marka isagaa ajarku ku bataa, acmaasha la qabanaya isagaa lagu hagaa. waa kii xadiidkii saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo abi kabshat alanmaariya xadiidkuu sheegayay. wuxuu yihi waxaan maqlay nebiga ole calayhi salaatu wasalaam 3 baan idinku dhaaranayaa buu nebigu yihi, halla waan idinka warramayaa. waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. 3 waan idinku dhaaranayaa buu yidhi oo sadaqo xoola ma yarayso, waxaad bixisay xoola kuma yaraadaan. ka labaadna qof cid ma la dulmi qof ma soo gaadho dabeetana kuma sabro ilaa iyo sharafti buu kororsadaa, cizi ayaa u kordha. yani inta lagu dulmiyo inaad ilaahay dartiisa ga sabirtid, adoo goosan kara ama wax iska dhicin kara. wadaad iyo wabinba dadku waxaad moodaa hadda inuu jecel yahay inuu isagu gacanta sare yeesho, inuu wax iska celiyo. laakiin haddaad sabirta buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, ciza kuu kordhaya. masalada saddexaadna wuxuu nebigu yidhi baabka su-aasha qof ma furo ii dhidhiibayda ilaa iyo baabka faqrigaa loo furaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dad wax weydiisadka iyo shaxaadka iyo baabkaa baabu mas'alaha haddaad furto fataxa allahu calayhi baaba faqrin aw kalimatin naxwaha buu xadiidku qoraya. 3 wuu ku dhaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam. halna wuxuu yidhi waan idinka warramayaa dhegaysta. muxuu nebigu ka warramay? dunidu waa 4 nin unbaa dunida 4 unbaa joogu nebigu tilmaamaya. 4 unbay u sugnaatay. mid ilaahay maal iyo cilmi isugu daray, labadaasuu isku haystaa, maal iyo cilmi.
cilmigu wuxuu keenayaa inuu camalkiisii oo dhan uu xaqa u hago oo markaa ilaahay kaga cabsaday oo qaraabo ka xidhiidhiyey oo wixii ilaahay uu xaq u lahaa ka bixiyey oo sidii alla ugu talagalay xoolihiisii uu isticmaalay kaasi buu nebigu yidhi manaasisha ugu fiican ee jannadu gelaya biafdali lmanaasil weeyaan mid labaad buu nebigu raaciyo ah nimaan isagu xoolaba haysan laakiin cilmu haystaa cilmiga uu haystaa markaa waxa uu keensanayaa inay niyo fiican ula socoto oo ah oo saadiqa niyo beenbeena maaha niyo dhaba niyo kuwii nebi maxamed lahaa waxaan idin saaray idinma haya iga hadhoo kale ee ooyayay oo kale ah niyo ah buu haystaa uu rumaysan yahay ilaahay hadduu lacag soo gelin lahaa adduun soo geli lahaa siduu hebel u galay inuu isna u geli lahaa inuu qaraabada ka xidhiidhin lahaa khayrka ka taageeri lahaa jihaadka ku bixin lahaa khayr oo dhan inuu ku adeegsan lahaabaa ka dhab ah hadduu helana wax kale kuma isticmaalaya saasuu isticmaalaya kaasina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa biafdali lmanaasil saaxiibkii buu la macyahay waxa uu wax ku helay waa maxay waxa uu wax ku helay cilmigiisii iyo labadan cagsigooda oo ah mid aan cilmi haysan laakiin xoolo haysta waana sida dadku u badan yihin wax haystaa dabeetana xoolahaas un ku dawakay aan markuu doono saka ka bixinayn markuu doono qaraabo ku xidhiidhin markuu doono ka sameey meeshuu doonaba kala dhacaya kaasi buu nebigu yidhi yatakhabat fii maalihi bigayri cilmi laa yataqi fiihi rabbah walaa yasilu fiihi raximah walaa yaclamu lilahi fiihi xaqa khabta cashwaa soconaya oo aan maxay dhacdhacayo aan ilaahayna kaga cabsanaynin qaraabana ka xidhiidhin waxna kaasi waa biakhbati lmanaasil buu nebigu yidhi meesha ugu xun ayuu gelaya midkaa kasii liitaa jiro isna meel la gelaya waa kee waa mid aan isagu cilmi iyo maal toona haysanin niyad xumina ay u raacday wallahi haddaan lacag leeyahay buu leeyahay hollywoodka iyo meel heblaayaan kasoo tuman lahaa maba haysto laakiin wax go-aan ka ah haddii ilaahayba wax soo geliyo inuu isna meel heblaayana tago heblaayana la tunta meel heblaayana taga kaasina kiibuu la koox yahay baa la leeyahay وإذا التقى المسلمان بسيفيهما ديو كلا ويان فالقاتل والمقتول في النار وأيه كان كل حريص على قتل أخيه أو على قتل صاحبه كان نوع عزيمة كابو أن هدي إلهي مسوق ليو إنه فرن بدو إذن لبضا نكي علمي لها هدو حول لي وبأفضل المنازل هدانو حول الله نوح اللي دوام حي وبأفضل المنازل kii cilmiga aan lahayna hadduu waxhaystana waa inkaar qabe haddaanu waxhaysanina waa inkaar qabe labada goorba balaayu helaya idan cilmigu wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay dariiqa saxa ah ee jannada loo galo cilmiga markaa aynu ka warramaynoo dhami waa cilmiga ilaahay kugu xidhaya aman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan waqaa'ima yaxdaru alaakhira ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إلهي وحليه سبحانه وتعالى ميسمين بلط المام يكو هبين كي تاغن وإلهي سبحانه وتعالى وعبادي سنة يساجد يا قائم بقى وآخر ورور كيد كبدا يعب صنية وهدنا إلهي نحريستي سنان كقوصنين كان سيدا يهلن ميسمين dabeetana waxaa kaloo la yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kuwa wax garanaya waa kuwii sidaa yeelayay kuwaan wax garanaynina waa kuwaan sidaa yeelaynin cilmiga kani waa ka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inugula dardaarmay fidintiisa barashadiisa raadcadiisa ulugayntiisa waa ka laynoo tilmaamay waa ka uu nebigu leeyahy balliquu canii walow aaya xadiiskii bukhaari aayadna ha noqotay dadka gaadhsiiya ama waxoogaagan isaga beriska lagu raadsado wa antum aclamu bishuuni dunyaakum kuu nebigu tilmaamayay laakiin maanta waxaad moodaa dadku inay isweydaariyeen labo waxay isweydaartay cilmigii hunguriga iyo kii aakhirada ka hunguriga wax walba waa loo ogolyay ka hunguriga waxaa loo ogolyay maxay wakti
وأبوه إنك وحليه هرتا وحن رباين وحبرتو لبا يتبن سكول كصباحه هدونا دختر إنجنير كمبان للرباط ودبل لحسن ضوضة كرو جامعة انت لعكت ولا لدى بتاجنانية هدانا بيه يكودنا دابس لدى بتاجن هبين يمال بودي دي سام حدو دي سنة الضبيب نقطه وتسوي حوك سنة سال عقب ما تسوي حوك سنة سال عقد ولا واحد كوب بحنيسا أنا لا تكون واحد وشو بيسا جامعة انت نادي بريسكا يا نرش هذيك الرادينية وحاس حوق يحولها واحد كوب بحنيسا أقونتي هنجوريا أما آخره كآخرة دتك وحير الرادية تلو سعودي الشيخ مكيل يسابك ورنا يعني من حد راسية والله وحربين الدين تبرته إياه هو مد بلاش من بلغ الديدية هذا آخرة بالنقطة الناس كما وقالين وقت يلعق وحمتون يسكي قليو وحربا إياه مد بلاش وما لها انقلب بحسي إن لا صاهره وحي هيدتكو إني هنتدو دي مالكودا كجنا قلات هاي هيدتكو هنتدو دي مالكودا إني إلهي كتاب يسكو برتان ولذلك علماء دي هوري waxa cilmigooda nafciga u lahaa waxay ahayd naftoodii iyo maal ibn Hibban baa wuxuu leeyahay 5 jeer baan noloshayda kaadi cabay buu leeyahay 5 taba cilmigu rabay inuu barto isagoo rixle cilmiyeed ku jira ayuunba meel lama dagaa ku soo baxay oo haraad uu baqti gaaray 5 goor baan kaadi cabay buu leeyahay imaam ibn Hibban tarjamadiisa kaga warramaan intuu talab cilmi ku jiray innagana burciya argaysan furtaan kaadi u soo cabay bay yiraahdaa waxay ahayd kaadi loo cabo si janno loo gali lahaa hadday kollayba kaadi cabtahay inaad u cabto inaad janno ku hesho ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa aad gasho sidaa ogeed ayaa cilmigaa janno lagu galaya waa ka ilaahay leeyahay yarfaci illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilm darajaat waa ku alla ku tilmaamayo waa kaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la farayo inuu ilaahay ka baryo inuu korsado cilmigu ikhwati waa waxa fitanka lagaga baxo ummaddu kullama jahligu bato waa kullama fitanku ay sii tirabataan oo madoobato oo meel loo kaca la garan waayo sawgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما كيف فتنة دي امتحان قدعوا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة با إلهي أما الراسخين تا وكا إلهي القرآن كفت المامية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وكا إلهي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وكا الله لو يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى الصراط العزيز الحميد وكا الله له وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وكا إلهي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه يخرون للأذقان سجدا إذن علمه وكمشكلة قفك كسارة لأن علمك أنك ورمين الروني وعلمك الشريعة إجنا لغتنا علومتك عليه كان شرعك حين وحيدا أنفع عليه شريعة هو يبنينيسا وحيدا أنا أنفع على حين وحيدا أنفع عليهم وحكم إذا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وعلم الضرر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بإلهه سبحانه وتعالى كاسو كلا علم ما أما علمك كبر كل حلسية علم ما فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق به ما كانوا به يستهزئون دول با إلهي وحولي مركا الرسول عداي ما ولتمي انت يريده هريه يستينوا با إلا فرحين وقلت علمك مادقا براتي انت بدن كل هذا حوقا غير ساين اسكي الله شيخ ارثقي غير نبي آدم انتاسنا عد قاري ملك ودحلكي غير نبي آدم أردن غير نبي آدم وحي يقون تجربة قصة هلين نولشان عدبا عدو ديبتي واحد أفكار ليس كشيء واحد قرار ليس كشيء قبل لسوى دي أيام مالهن جامعة هني إنهن يرير ريال انت تعالى مركا أي برتان ضد بدن وكمدي waxay noqotaa intii aakhiraba way ilowsiisaa
dabeetana farxuu bima cindahu min alcilmi waxaaqa bihi ma kanuu bihi yastahzi'uun. hadduu cilmigu kaa noqdana faa'iida ma leh. hadduu noqdo kuwa ilahay leeyahy faacrad can man tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya dalika mablaguhum min alcilm ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wahuwa aclamu biman ihtadaa. qolaa ilahay wuxuu yidhi aqoonta intay ka og yihiinba waa wax yar oo ninkaan aakhiro ogeyni dee wax badanba ma oga. ninkaan ogeyn maalin 50,000 sana ah dunidan taariikhdaynu haynoo dhame waa imisa? waxaa laga yaabaa taariikhaynu imanka ka warranay basharkan wax qorqora iyo waxa kane 4,000 oo sano 5,000 oo sannadood meelahaas inaystay. 5,000 oo sannadood maalin qiyaamahaba iskaga badan. marka bacsigu dhacee dadka lasoo tubo ee ilaahay la wada hor keeno ee xashrigu yimaado ee xisaabtanku yimaado fii yawmin kana miqdaaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamiila inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba yawma takunu الsamaau kalmuhl. ninka aan maalintaaba ogeynin muxuu ogyihi? waxba ma oga. ninka aan ogeynin dadkani jid yar oo jidka siraad la yidhaahdo ay mari doonaan oo qofka camalkiisiiya wuxuu ilaahay uun u geystay uu yahay markabka la fuulo doon iyo tareen iyo wax kala toonaanay jirin farsamana meel lagu dhaafo aan ahayn oo meel la yidhi muuska midi afkeed ka fiiqan midi afkeed wax ka fiiqan intaad ku socon kartaa. farsamada quree lagu dhaafaa waxa la yidhi waa ninkii camalkiisa uu dubdhiga baa la yidhi wax kaloo horu marinayaa ma jiro. ninka aan ogeyn maalinta nebiyadu allahuma sallim 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 taagan yihin. ninka aan ogeyn wa in minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya naar in la wada dul mari doono. ninka aan ogeyn maalin inta dadku wada haraadaan xawdka nebi maxamed ciddii ka cabtaa unay haraad goyn doonto. ninka aan maantaa ogeyni ninka aan janno iyo naar kale ogeyn waxba ma oga. cilmiga aan taa wax kaa tusinina cilmi maaha. idan waxaynu u baahan nahay ya abati inii qad ja'anii min alcilmi ma lam ya'tik faاtabicnii ahdika siraatan sawiya. qofka ina yidhaahda war aqoon xagga alla abaan hayaa in laga dhegaysto. aqoontaasi adduunkuna waatu ku saxmaa. dadku adduunka iyo xoolaha iyo qaaruun markuu kibray ee qooqay kuwii cilmiga la siiyey maxay yidhahdeen waqaala aladiina uutuu lcilma waylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila صaalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun. ama qoladii u rayraysay iyo isagiiba meel daran bay u kaceen. idan waxaynu u baahan nahay aqoonta dhabta ah ee ariiqa jannaa inaynu garanno. aqoonta dhabta ahi waa ilaahay aada barato subxaanahu watacaala waxa lagu caabudo aada barato xalaashii xaaraanta aad kala ogaato qabriga waxa malaa'igta loogu jawaabo aada ogaato adduunkan sida loo kor soo raado aada barato iyada lafteeda cilmiga oo ah cilmi aakhiro. qofka tawxiidka haysta afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim. qofkaan ilaahay garanayni wuxuu la mid yahay ku madaxa ku socda xataa noloshan adduun waxba kuma haysatid. idan ikhwati fi lcaqiida ma rabo inaan war badan sheego xataa haddaynu isnana akhriyo quro nusuusta kitaab alcilmi culammadu kusoo ururiyaan ama qur'aan ama xadiisa waxaad moodaa wakti badan inay u baahan tahay akhriskeeda iyo tafsiirkeeduba ama cilmiga iyo dalabkiisa iyo fadliga ku jira ama caalimka iyo fadliga alla siiyey ama cilmiga iyo anfaca uu leeyahay ama cilmiga iyo ikhlaasku uu baahan yahay ama cilmiga iyo dariiqiisa ama cilmiga iyo qaabka loo barto yani abwaab tiro badan bay culamadu ka qoreen. daris muxaadariya 2 toona wax lagu koobi karo maaha laakiin waxoo dhami gun bay leeyihiin. gunta waxa weeyaanu ilaahay barashadiisa ayaa dariiqa lagu badbaado. cilmigaasi nebiyada loo soo dhiibay baana cilmi ka una saxsan una toosan jahlina aanu ku jirin.
cilmigaasoo qura ah. ka kale ee cilmiga bini aadamku waa wax koro oo kobca, gafa oo dhaca, toosa oo qaldama, wax waliba ka suurtagelyihin. kanise waa absolute value, waa waxaan isbeddel lahayn, waxaana soo dejiyey maxay? alladii yaclamu sira wama akfa. ilaha wax kasta og, anzalahu bicilmi ayaa ilahay leeyahy subxaana watacaala. ilahay baa aqoontiisa ku soo dejiyey, ilaha wax walba garanaya. idan waxaynu u baahanay ikhwati fi lcaqiida inaynu cilmiga sharciga u dadaalo, barashadiisa u dadaalo, ku dhaqankiisana u dadaalo. barashadiisa u dadaalo siduu u kala horeeyana u barano. waayadan dambe manhijiyadii cilmigayd intay luntay baa waxaa laga yaabaa inaad aragto manhajuljarxi watacdiil qolaa cilmiga kasoo bilaabaysa, kutubu taraajum akhriskeeda kasoo bilaabaya, ama sixat lxadiid kasoo war halkaa lagama bilaabo. war furuudulcayn baa ku saaran, fardulcaynkaa laga bilaabaa. sharciga waxaa laga bilaabaa waxa adiga ka asaxaya, waxa caqiide kuu noqonaya, waxa cibaado kuu noqonaya, waxa shaqo kuu noqonaya. qof kasta waxa ku waajiba wixii isaga fardulcayn ku ah. haddaad taajir baac mushtariya tahay, tijaarada cilmigeeda inaad barataa waajibay kugu tahay. haddaanad tijaarada baranin waa dambaabaysaa, waayo ma kala garanaysad xaaraanta iyo xalaasha. waxaynu u baahanay inaynu ahmiyad badan siino kitaabka alle iyo sunnada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, oo ah cilmigii nebi maxamed inoo keenay ee ilaahay samada uga soo dhiibay, inaynu wax dhaba ka ogaano dabeetana ku camal fallo. asalaamu calaykum waraxmat ullah.